السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ومالنا سبحانه وتعالى ولا ريال لو قدرنا إن شاء الله تعالى شغالي قيمها بدنا dadka aanu haynay nagu sugan alxamdulilah halkii waa magaalada Hargeysa ma sha Allah subax roobad aad u qurux badan waa gurigan ka deganaa magaalada Hargeysa in sha Allah taala shaqada sida ugu weyn ku socotay magaalada Balgubadle oo ku caawinayay quraanka kariimka walaalaha qiimaha badan muslimiinta waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala qadaray dad fara badan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku shaafiyay si Ilaahay u ballan qaaday horay in ummadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah rasuul rumaysay quraanka ku dawoobayso dadka dhaalimiinta quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qasaaro iyo jinnigoodin sugada in sha Allah ta'ala maanta waa arbaco bari oo khamiis ayaa noo haray kadibna waxaan qaban doonaa insha Allah ta'ala sida caadada ay ahayd sanad walba inaan aado cimrada insha Allah ta'ala si aan u soo cibaadeysto casharada al-awaaqirka waa ramadaan weeyaan insha Allah ta'ala walaalayaal ilaahay waxaan ka baryaynaa qof walba muslima oo bishaasi nolol ku soo gaaray in ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalayaal raxmadda ilaahay siiyo subhanahu wa ta'ala dambigiisana dhaafo cidku min naarka ilaahay ku daro subhanahu wa ta'ala marka waxaan halka uga duceynayaa dadka xanuunsanaya ee leel daran xanuumadan shahaadiinta insha Allah ta'ala waxaan leeyahay idinkana Allah idin shaafiyo walaalayaal kadibna sidaan hore u ballan qaaday waxaan qaban doonaa dalka Djibouti بعد العيد وقبل السنة إن شاء الله تعالى مركا حلنا هي كو إلهي سبحانه وتعالى دين كيسا أنه صاحب كنا نجعلنا حلنا إلهي سبحانه وتعالى إذن دوره يحسد كنا وحوي إلهي سبحانه وتعالى هرب الشيء وحيوان اللي سو حسد ودرنا وحكم ده إلهي سبحانه وتعالى قفك وحسيه إلهي سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما إلهي سبحانه وتعالى dadka miyad ku xasdeysaan aniga waxaan siiyay oo fadli ah marka ilaahay wuxuu noo sheegay nabi ilaahi ibraahim alayhi salaam inuu maal iyo xigmad intaba xugum siiyay marka waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'al Allah min fadlina Allah kana bikulli shay'in alima marka waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo saar umada qaar fara badan oo ku anfaco diinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagoo ka tahay ikhlaas maxaa yeelay maanta dadku uma baahna lugooyo iyo uma baahna maxaan ku yiraahdaa in laga samaysto waxaysan doonaynin insha Allah ta'ala marka walaalayaal fariintani waxaan u farayaa walaalahayga qiimaha badan ha ogaadeen inay ka hartay xarunta ilaajka maxaan ku yiraahdaa shabali gubadle maanta oo arbaca iyo bari oo khamiisa marka waxaan oran karnaa bari geliga dambe ay bixada dhaysa insha Allah ta'ala xafladina la dhigaya waan soo gabagabeyn doonaa insha Allah ta'ala idinka iyo aniga iyo intii muslimana insha Allah ta'ala waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala haydan dhowro insha Allah ta'ala yakun khayr usbuh arba'a ويان إن شاء الله تعالى أروريو إن شاء الله تعالى مركا حلنا هاي إلهي سبحانه وتعالى الروب كي رحمته ونقشري هنو سياديو إلهي هيدا الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقرحان ذاتك الصوصة دي بدها هاو قادم ولا ليالين إلى حرمتي إلاج كاهيد هالكاسي كحرمتي حرمها نغينا المسؤولين تا سومالي لان يو قارحان وسارد الدين تا يو غافتا إلهي سبحانه وتعالى هبركيو إلهي سبحانه وتعالى هيدا دوره استقيمها بدن مارت إن شاء الله تعالى مارت نقول قلاتين ومدو الشغينو إلهي قراك يستنقوا أنفعنو حنا هاي السلام عليكم مرلبات وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله
جزاك الله. دمان أصحابتي أنا الله يدين دورو